kadib qaraxii iyo weerarkii isdabajooga ahaa ee 12 bishan ka dhacay hotel Madiina ee magaalada Kismaayo ee ay geysteen maleeshiyaad ka tirsanaa ururka Al-Shabaab kaas oo geystay khasaare isugu jiray dhimasho iyo dhaawac iyo sidoo kale burbur hantiyeed oo ku yimid qaar ka mid ah shacabka ku sugnaa hotelkaasi ayaa wixii xilligaasi ka dambeysay waxa soconayay dadaalo ay sameeynayay wasaaradda caafimaadka ee dawlad goboleedka Jubbaland iyo guud ahaan bahda caafimaadka Jubbaland oo ku aadana sidii loola tacaali lahaa dadkii ku dhaawacmay weerarkaasi oo qaar ka mid ah loo qaaday magaalooyinka Muqdisho iyo Nairobi halka intii soo hartayna haatan lagu dabiibayo isbitaalka guud ee degmada Kismaayo haddaba si aan wax uga ogaano xaaladda caafimaad ee bukaanadaasi ayaa waxa ka hadlay Dr. Xuseen Sheekh Qaasim oo agaasimaha guud ee isbitaalka guud ee degmada Kismaayo tirada guud ee dhaawac isbitaalka la keenay waxay ahayd 49 ka bukaan waxay isugu jireen dhaawac fudud iyo kuwa iska dhexdhexaad iyo dhaawac culus kuwii dhaawac culus ahaa oo tiro ahaan 13 waxaan u dirnay Muqdisho kadib markii wixii emergency treatment ah lagu siiyay isbitaalka Kismaayo iyo xaaladoodu degan tahay oo wanaagsan tahay baan u dirnay Muqdisho isbitaalka Digfeer baa la geeyay hadda yaalaan waxaana kaga warhaynaa inay xaaladoodu ka soo reynayso bukaanadii kale way fiican yihiin intoodii badnayd waa la saaray 22 baa hadda tiradu maraysaa oo recovery sameeyay oo baxay iyagoo wanaagsan 14 baa hadda ku jira 14 ka ku jira xaaladoodu way ka soo reynaysaa aad iyo aad bay u fiican tahay